أنا الدكتور بسام الحركي، طبيب الأعصاب في المشفى الصومالي السوداني في مقديشو. إخوتي وأهلنا الكرام في مدينة بلدوين. أيوة دكتور بسام dhakhtarka neerfaha isbeddelka Soomaali Suudaanees ee Muqdisho waxaan salaam iyo ducaa u dirayaa walaalaheena iyo ehelkeena qiimaha leh ee ku nool magaalada Beledweyne waxaan idin soo booqan doonaa maalmaha soo socda insha Allah waxaana kaambeynka ku qaban doonaa isbeddelka Al-Aamin ee magaalada Beledweyne taasoo ah booqasho caafimaad oo gaar ah oo aan rajaynayno in Ilaahay ka dhigo mid khayr iyo faa'iido u leh dhammaan bulshada حيث سنقوم بعلاج كافة الأمراض العصبية، أمراض العمود الرقبي، آلام الظهر. inta lagu jiro booqashadan waxaan u adeegi doonaa bukaanada qaba cudurrada kala duwan ee neerfaha sida cudurrada la xiriira laf-dhabarta iyo qoorta, xanuunka dhabarka, cudurka qalalka ama suuxdinta, dhibaatooyinka maskaxda iyo neerfaha, dhiig furanka maskaxda, stroke, shilalka iyo dhaawacyada neerfaha, cudurka booliyada ee carruurta naafaysa, dhibaatooyinka la xiriira balwadda iyo habdhaqanka. waxaan dadaal u geli doonaa inaad heshaan baaritaan sax ah iyo daaweyn dhammaystiran oo ku habboon xaalad kasta. لا تدعوا الفرصة تفوتكم، سنزوركم مرة كل عدة سنوات. الفرصة Hamoogaanina fursadan dahabiga ah. Booqashadeenu ma ahan mid soo laalaabata sanad walba, waxay timaadaa kaliya dhowr sano kadib. Waa fursadiinii oo gacanta idinkugu jirta, annaguna waa idin soo soconaa haddii ay baydmo insha Allah. waxaan idin rajaynayaa caafimaad iyo farxad buuxda annaguna waxaan idin imaanaynaa annagoo qalbiyadeena ka buuxda ixtiraam kalgacal iyo jacayl aan xad lahayn mahadsanidin